بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الصوماليد ميلة جوجتان بإلهي سبحانه وتعالى دكوان ما يالو عدي دبنبك الله كقادو عدي دن الله وفي انت بان الله ديقو انت بوكت الله بوكسي انت دمت الله انحرستو والدينتين الله انحرستا نغنا الله نوغا دبا نحرستو dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inoo badbaadiyo. Maanta waxaan ka hadlayaa xiriirka ka dhexeeya ictiraafka Somaliland iyo keyska buunbuuninta iyo aflagaadada iyo awoodda iyo culayska la isugu geeyey oo lagu koobay lacag la lunsaday oo tiro badan lagu koobay Soomaali lagu koobay oo magacooda saa loo sheegayo ilaa madaxweynihii Mareykanku uu yiraahdo waa garbage. waxaan arkay Xasan Sheikh oo hadda ka jawaabay oo yiri garbage ma ahayn waana unacceptable, wax la aqbali karo ma hadalkaasi. Soomaalida waa dad macno leh, warkaagu hadda macno ma samaynayo. waagaan ku lahayn u jawaabay idina u jawaabtay iyaanta waa la wadwadi lahaa, laakiin hadda xataa lagama soo qaadin waxba lagama cid ogba ma jirto, anaga oo kaliya. waxaan rabaa marka dad waxa soo baxay keyskan yaa ka dambeeyey baa baaritaan lagu sameeyey. kacdoon baa kacay dalka Mareykanka oo anti-Israa'iil ah oo ay qaateen dhalinyaradii iyo dadkii caddaanka ahaa, majority-good ay qaateen. dhalinyaradu waaba overwhelming, boqolkiiba 89 bay ahayn dhalinyarada caddaanka oo Republican oo ka soo horjeestay Israa'iil. kuwa dimuqraadiga waa ka sii horreeyeen waana ka badan yihiin. waa qadiyadda laga yaabay Mamdani waxaa doortay 30% Yahuudda degan New York, boqolkiiba 30 iyo waliba dhowr baa doortay iyadoo inta aragtay oo lacag lagu bixiyay oo la dacaayadeeyay oo la yiri waa argagixiso oo la yiri waa Islamic jihadist oo la yiri Hamas buu ka tirsan yahay, intifaado aaminsan wax kasta la yiri. isagoo isla soo taagay anu Israa'iil ma aqaan, Netanyahu haduu yimaadana waa xiraya baa 30% ay dooratay. kacaankaas kacay baa waxaa la raadiyay xal si loo damiyo oo dadkan cawaanka ah oo Trump iska daba socda oo maaga la yiraahdo loo jeedin lahaa oo meel kale loogu jeedin lahaa. markii hore waa hor ordeen Tucker Carlson, maxaan ku yiraahdaa Nick Fuentes, Alex Jones, nimankii afhayeenka u ahaa ururkaas baa kulligood toosh ku daaray muslimiinta baa markii hore lagu bilaabay. kadib ayaa waxaa loo leexiyey Soomaalida iyo state Minnesota dhulkaa la jaray. dhib aad u tiro badan baa loo geystay. wuxuu leeyahay nin la yiraahdo Moti Shoshani oo u shaqeeya TBN Israel, balaankaas iyo qorshahaas ah in laga jeediyo indhaha Mareykanka Israa'iil laguna jeediyo Soomaalida waxaa ka shaqeysay xafiiska Prime Ministerka Netanyahu iyo Mossad oo muddo ka shaqeynaysay ictiraafka Somaliland. muddo markay yiraahdaan ogaada in badan baan idinku yiri jawaasiis way dadka madaxda noo ah, in badan baan idin sheegay Soomaaliya ma aha wax easy iga soo baxaya aan iska dhihi karo ama aan ku faraxsanahay inaan dhaho. marka waxaan ku faraxsanahay ma waa ka xuma, laakiin taas xaqiiqo. Mossad baa ka shaqeynaysay. waxaad arkayseen dhalinyaro aad u tiro badan oo Somaliland u badan, haddana waxa ku soo biiray kuwa reer Puntland oo markii la soo qaaday Israa'iil ku salinaya u ducaynaya. Falastiin la waxba nagama gelin. ogaada Falastiin waa qadiyad Islaam. Umar bin Khattab radiyallahu anhu khaliifatu Rasuulillah baa furtay, markaas uu waqaf ka dhigay arladeedoo dhan. hal nin baa ka hadlay, wadaadaduna halkaas ay ku jabeen. hadday ordayaan oo ciray inta u tageen markii ay isdaad raaciyeen oo isaga ay u niikiyeen bay inta ciro u tageen buu yiri war waa yaabay, war anaa yaabay, war munkar badan baa jira, war munkarka ridiya. laakiin kuma dhacaan Abraham Accord iyo Israa'iil bayskeeda iyo dadka la soo tarxiilay midna kuma dhacaan inay ka hadlaan iyo ictiraafka ay Israa'iilna ictiraaftay oo macnaheedu yahay annaguna inaan iyada ictiraafno, markaasna aan meesha ka saarno awqaaftii muslimiinta oo Umar bin Khattab waqfay. Salaaxuddin al-Ayyubi maxaa ka galay haddii adiga waxba ka gelin? qadiyad Islaam weeye, maaha qadiyad cirqiya ama wataniya ama falastiiniya, maaha, waa qadiyad Islaam. Umar bin Khattab radiyallahu anhu bay ka soo jeedaa. Salaaxuddin al-Ayyubi iyo Muctasim billah iyo maxaa ka galay? Turki bay ahaayeen. maxaa ka khuseeya? islaamka oo dhan bay meeshaas u tahay waqaf, lamana taaban karo. qof kastoo muslina oo arrintaas
هذا الكافكيس كسب حين توبت كانوا إلهي وتوبت كان هو نقول هل وذات بكار لي محمد ولي وأنا الحر سيدا وذات كاس واحد دين اللي سجى يجمع وضع واحد ماشي جوا إن هاد عيرستان أنتي نكله ولا نيكي يوم عيال أنا بحي يقف بها سايري عالم بالوس جودي وحاسوا ماينر وهو وين كهذا كفر بعلاقات قالني ما علاقاتي وحلقاتي أبراهام أكول ويسوي ترى الدينية سياسة وحلقاتي بيس إن إسرائيل لو غفره أنا tell you one thing سوماليا وحين غنيسا ودنكي كوات أوغولادا إسرائيل بيس أي لغة مركب مددك عالم كجوغدو ما كعقلي بدن هاي مسوا كحوليسن هاي لبدا يمتا إن الأمة أوردن كعقلي بدن هاي وإسرائيل وفي عنو شحشحة أنا أنو نقول قولي يقول ريسيو بيسيسا iyo inaan hoognayo oo baanay oo qax iyo qaxooti inoo soo socdo oo Falastiin wixii ku dhacay iyo inaan ka diirin oo iyagii iibsanay dhiigoodii iyo dhacaankoodii dhulkii muslimiinta aan iibsanay in layna kaga jarayo oo ay dhici doonto wama asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wa ya'fu an kathir wixii idin ku dhacay idinka kasbaday ilaahay wax badan buu idin dhaafay in layna oran doono ma garanaysaa wadrib lahum mathalan qaryatan كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون سورة النحل إلهي سبحانه وتعالى داس ما ينكر رموبي دونتا وهذا هاي جروب كاس هذا دجن سومالي لان وأقبلي إن إسرائيل سودو ويستان سنة كدب مرأة فوقين ما الله به دونا ما الله يدين شاقي ما مغلي ويدين ما الله أوران دونا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين تصالوا سيبا ليري قرية آمن هيد ونبضها عنتنا هي اللي جرتي لبض القضاء ay ku faanaan way horumar baan gaarnay amni baan haysanaa wax badan baa ka jira oo runa labadii qodob ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu intaanu siinay labada bay markaa nicmada ilaahay ku kufriday qaryadaasi markaasaan waxaan ugu bedelnay oo dhar uga dhignay gaajo iyo cabsi markaas ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayada kale wuxuu ku leeyahay samada iyo dhulka midna loogama ooyin wixii ku dhacayna loo dan lagama gelin mayna ku dhici doontaa oo waxaan nahay dad hoogay oo ba'ay oo dab soo dhaweystay mise waxaan nahay dad ummadaha ka caqli badan oo Israa'iil oo khatar ah baan heshiis la yeelanay iyo Mareykanka labada mid noqonaysa aniga waxay muuqata inaan dab ku ciyaarayno inaan dab soo qaadanay inaan inagu gurigeena gubnay shimbiri maalin bay dab qaaday maalintiina hooyadeed buulkeedii bay ku gubtay ciro iyo nimanka siyaasiyiinta ah ee iibsani ma dhihi doonaan kuwii taageeray ma dhihi doonaan loo maandhay maxaa noo kaagay Israa'iil maxaa noo ka diray ma oran doonaa oo mayna ka yeeri doontaa mise dad guuleystaan noqon doonaa the time will tell waqtigaa sheegi doona taas waxaan u daynayaa waqtiga ninkan la yiraahdo Moti Shashani waa nin Yahuuda wuxuu u shaqeeyaa TBN Israa'iil wuxuu December صدمkeedii afar bari kadib markii la ictiraafay Somaliland ayuu wuxuu sameeyay barnaamij markaas uu yiri corruption ka jira Minnesota ee Soomaalida lagu boonbooniyay waxa ka shaqeeyay prime ministerka iyo xafiiska Mossad baa ka shaqeeyay markuu ictiraafay Netanyahu Somaliland wuxuu amaanay oo bogaadiyay Mossad leaderkeeda oo sanado badan ka shaqeeyay waxaad arkaysaan kuwo wariyayaalaha oo af Hebrew wax ku qoraya intuu soo fariistay Netanyahu wuxuu yiri halkii boosti oo lagu difaaco Israa'iil waxaan bixinayaa $7,000 baan ku bixinayaa niman waagi hore midnimada ka soo shaqeyn jiray xamar joogi jiray baa saa u ordaya saa u qamaamaya cash lacag bay gadanayaan oo guranayaan diintoodii bay gadanayaan xilligan nabiga inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam muxuu yiri nabigu waxa dhici doonta fitanan lala yaabo oo habeenko kala oo mugdi kal xasiir cuuda isdaba socota markii mid laga gudba mid kale la galiya mid markii laga gudba marka wuxuu yiri fitnada iyada ah kulaylkeeda iyo sharkeeda iyo dhibaatadeeda uu ka shakeeyay nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan fayumsi kafiran ويمسي كافرا فيصبح مؤمنا يعني ساسو يسدوا مريا قفكي مثل قال كهذا مؤمن نقونيا كي مؤمن كهذا قالوبيا ساكن مسلم هاي سوى مؤمنة توصي مسلم ما مؤمن كسر يا مؤمن مسلم ما كسر يا مركز قلبتي قال
يبيع دينه بعرض من الدنيا يسير دينتي سواح يربو سيسانيا وإلى شاير يركاه يعي أو قيلني أو بوستي قدتك كوعي أو أفر إلى تكسع وحقري أو يهودا وني كيف فرتك فيقية ولادك الحري بوح وكسر قري أفهبرو ويلكا يركاه وبكيلا تيل إيجي هاي شلي وحكتك علمي الأسعانو قبيالات با الله يسيو قرعجس بوها دنك كلو تاقين شلي الأسعانو بتشوغي وكتك علمي وحيابها أي reer Somaliland in badan sheegaan oo midka abaan idin sheegay dawladda Soomaaliya ana laysay therefore Soomaaliya waa ka go'aynaa ciro dawladda Soomaaliya wuu la dhamaystay way ka dhacday isagoo first secretary ka Russia bay ka dhacday rejiimkii baa idin haysta oo madaxdiina kuwii ka horeeyay dhanna rejiimkaas ay ka soo wada shaqeeyeen kulligood marka waa khuraafaad Mossad iyo ay ka shaqeeyeen iyo ajnabi waxa kale oo maalin dhow idin sheegay بروجكتيغا هار كونسل إنه أها 8 سنة مشروع سعودي ولقد مسيدين بلان بيبو إياه هذا وحا قرشود إياه إنه يقصوا داريان داد كاسلكا وحا نوصل نقول يا هير مينيسوتا إليك وحا نقطين سكيب جود سومالي لان اعتراف كذا ليدين مرصدي وحا كرو ليدين مرصدي إن لقد شيديو إندها دادك عدانكا لقد شيديو ويركي يوركي أيكوها ين إسرائيل لكن دب أصول نقدين هذا نيك فوانتسي واحد لين روان برسنت وحكي محانا يقرأ وحكي شنكا لعقتي اللي نصدين less than 1% وي إيقونا less than 1% ورنا قلت جوها شقدي وينت هلقون نقدو ما جا هذا دب لوس علنيا ستيف بانن وحكى لي ويراني شبيرو تكر كارلسون ويراني شبيرو كانديس ويراني شبيرو كل جود هذا وحيكون بلعبين شبيرو بين شبيرو وانك ايجنسي جواه اسرائيل وجوجا مريكان كالعقد الغشبه بوليغا مديرو ميجيد اهوي انت عندنا لا عطاء دقن حن اخلاق حن او مقرينسا قفك عدانك انتو كادكاداي بو وابا سو دبيسانيا markay hadla gaab ku soo leeyahay hadda intay geesaha ka galeen bay dhaheen garbage baata kursi leeg bay ku fariisiyeen tabaday u rogeen wixii dib ay u soo noqotay هذا waxa ku jira marka oo aan rabaa reer Minnesota maadaama escape gooda noqoteen waxa jiray wiil yaro la yiraahdo Nick Shirley Israel baa la geeyay prime ministerka uu sheegay ninkan Moti Shoshani dadka uu lacagta ku siiyay buu kamid yahay inuu idin aayo oo idin aflagaadeeyo laakiin wuxuu ku dhacay dambi buu ku dhacay wuxuu idin ku sheegay inaad corrupted tihiin beenna uu idin ka sheegay libel lawga iyo defamation lawga dadka kambaniyada iyo shakhsiyaadkaba hadii qof ku xadgudbo oo been ka sheego oo arintaas ay been noqoto oo ay dacwayaan lawsuit ku furaan civil lawsuit qofkaas jeebkiisa faaruq buu noqonayaa lacagta ka dhamaanaysa waxa la wixii la soo siiyay oo lagu soo shubay iyo tan lagu shubi doono lacag idin soo doonatay weeye Soomaaliyeey maadaama la idin dhibaateeyay taajirnimadii baa bilaabatay وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وإنا دبسطان لقيا ولكن أي خير كوتا dhageysta waxaan idin leeyahay qof kasta horta kambaniyadii uu hor istaagay oo ahaa Minnesota ku yaalay 9 bay ahaayeen daykeer 9kii 5 kamida waa la kala ergareeyay dawladdu waxay tiri wax dambiya male afartii kalena waa soo socdaan kambani kasto la kala ergareeyay as a company lawsuit ba furanaysa waxa dacweynaysa oo ku dacweynaysa information iyo inuu idin aflagaadeeyay dhaawacna u geystay kambanigiini iyo security mid la jabsaday baa jiray oo dhibaatadii soo gaartay physical ba ay tahay oo la dhacay documentation koodi kaas kambanigaas minimum 100 million ama 200 million ku dacweynaya qof kasta oo shaqaale ku ahaa ama soo maray xafiiskaaga oo shaqaale ka noqday gaar baa lacag loo siinaya 10 million ilma kasta oo daykeeradaas joogay familigiisa waxa loo xireynayaa lawsuit u gaara kambaniyada lawsuudyada xareeya oo looyarada ahay iyaguna lacag bay ka dhargayaan idinkana lacag ta adduunka la idin siinaa juuriga idin awood gareynaya ma aha wax ku xiran Trump iyo dawladda juuri baa loo saaraya juurigaas waxay akhriyayaan waxa la idin ku sameeyay iyo dhibka ay keeni karto waxa sheeganaysaan habeenkaas seexan weyday iyo saacada isla hadashay iyo ma garanaysaa marka aad baqday meel ay rabtayna aad ka gabatay waxa soo dhan waa qoranaysaa ciyaalada iskuulka intay aadeen garbage loogu yeerayo waxa soo dadka inta wadada loo istaago la leeyahay ma garanaysaa go back home garbage baa tahay soo la leeyahay waxa soo dhan
oo ku dacwoonaysaan waxaa leedihiin meelaanu marnaan weynay waa noolaan weynay waana la dhibaateeyey lacagtii adduunka next